صاحب هذا البيج كوكو صبتحي ندي رجلي وده سبسكرايب لايك يا شير. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصة عجيبة أحكون الصابسان إمام الشافعي أرديجيسي يونس بن عبد الأعلى لوضع الله النحريسته بلدت كان لغن وناقوده إلى دقيسته. يونس بن عبد الأعلى wuxuu ka mid ahaa ardaydii imaamu shaafici isaga iyo macalinkiisii imaamu shaafici ayaa mas'ale isku khilaafay. yunis waa istaagay isagoo caraysan cashirkiina waa ka tegay. gurigiisa ayuu aaday. markii habeenkii la gaaray yunis wuxuu maqlay garaacidda albaabkiisa. yunis wuxuu yidhi yaa albaabka garaacaya. garaacihii albaabku wuxuu ku jawaabay waa maxamed binu idriis. yunis wuxuu yidhi waxaan ka fekeray qof kasta oo maxamed binu idriis la yidhaahdo imaamu shaafici ma ahani. yunis wuxuu yidhi markaan albaabka furay mise waa macalinkaygii imaamu shaafici. imaamu shaafici wuxuu yidhi yuunisow waxaan isku waafaqsannahay boqolaal mas'alo, waxaan isku khilaafnay hal mas'alo. yuunisow ha isku dayin inaad khilaaf walba ku guulaysatid. mararka qaar in aad qalbiga qofka kale kasbato ayaa ka muhiimsan inaad arrin ku guulaysatid. yuunisow ha duminin buundooyinkii aad dhisay ee aad ku gudubtay. waxaa dhici karta inaad maalin uun u baahato inaad ku soo gudubto. khaladka ama gefka nac mar walba, laakiin ha nicin qofka khaldamay ama dambaabay. qalbigaaga oo dhan ugu xanaaq macsiyada iyo dembiga, laakiin cafi oo u naxariiso qofka dambaabay ama sameeyey macsida. yuunisow oraahda naqdi oo muuji khaladkeeda iyo duduleelkeeda, laakiin ixtiraam qofka hadalkaa yidhi. taa macnaheedu waxaa weeyaan hadalka khaldan, hadalka asaga a naqdi oo caddee inuu khaldan yahay, laakiin ixtiraam qofka hadalkaa ku hadlay. ujeeddadu waa inaan jirada ka takhallusno ee ma ahan inaan ka takhallusno bukaanka. waa kuma imaamu shaafici? magaciisu waa maxamed binu idriis. wuxuu dhashay 150 hijriyada taariikhdu markay ahayd. wuxuu ku dhashay arlu shaam magaalada ghaza. wuxuu ku soo koray saboolnimo iyo agoonnimo kadib geeridii aabbihii. wuxuu xifdiyey qur-aanka isagoo 7 jir ah aan gaarin, kadibna wuxuu u jahaystay xifdinta axaadiista. wuxuu ka mid ahaa imaamyada afarta ah. madhabka shaaficiyaduna isaga ayuu ku abtirsadaa. jasaakum allahu khayran. casharkeenna maanta intaasuu ku egyahay. haddii aad wax ka faa'iiday fadlan like dheh. haddaad nagu cusub tahayna fadlan subscribe dheh. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.